asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 5 arrimood oo sabab u noqon kara in alle irsaaqada ku waasiciyo. marka hore fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkeena adiga oo gambareelka kusii dhufanaya lana wadaag saaxiibada. muuqaalkeeni kan ka horeeyay waxaan uga soo hadalnay 10 waxyaabood oo sabab u noqon kara in Rabbi cimri dheer kugu siiyo. bal markaana aan idinla wadaago 5 arrimood oo iyana sabab u noqon kara in Rabbi irsaaqada ku waasiciyo. kulligan waa jecelnahay in eebbaweyne noo furo iridihiisa dhanka kharashaadka ama irsaaqada ah, laakiin si taasi u dhacdo aan isku dayno inaan qodobadan la nimaano. qodobka koobaad, istighfaar joogta. inaad toobad weydiisato Rabbiga waa mid ka mid ah sababaha Alle weyne kugu waasicin karo irsaaqadaada. istighfaarta waxaan ula jeednaa toobad weydiisi ama Alle u noqosho. suuratu nuux wuxuu Rabbi qoomkii loo diray Nabi Nuux ku amray inay toobad weydiisa Rabbi la yimaadaan si Alle ugu furo samada, yacni uga saaro abaaraha, una siiyo awlaad wiilal u badan maadaama bani aadamka ubadka wiilasha uu jecel yahay. qodobka labaad, alla ka cabsi. cabsida eebbe ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha lagu gaaro in Rabbi ku waasiciyo irsaaqada. wuxuu Alle quraankiisa ku sheegay in qofka isaga ka baqa si dhab ahna u caabuda uu wax walba u fududaynayo kana arsaaqayo meel uusan ka malaynayn. qodobka saddexaad, ku tiirsanow Alle keliya. si Rabbi kugu waasiciyo arsaaqda, isku day inaad eebbaweyne keliya ku tiirsanaato, isaga keliyana wax weydiisato. dad badan iyaga oo raba inay dhaqaale kordhiyaan ayay meel xun kala dhacaan, iyaga oo gacmaha u taagaya mid aan waxba tarayn, kana tegay allihii lahaa adduunka aan aragno. bani aadan waxba kuma tari karo, kaamana dhimi karo mar haddii xagga Rabbi laga soo xukumo. isaga weydiiso oo tala saaro. qodobka afraad, u naxariiso dadka. mar walba oo aad naflaha adduunka jooga u naxariisato, adigana Rabbi ayaa kuu naxariisanaya, kuuna furaya albaabadiisa risqiga. sidee alla naxariis uga sugaysaa adiga oo aan uunkiisa naxariis tusaynin? ugu naxariiso dadka sida aad jeceshahay in Rabbi kugu naxariisto. u mahadnaq Alle marka aad barwaaqaysan tahay, si uu kuu xuso marka aad dhibaataysan tahay. qodobka shanaad, ku dadaal sadaqada. mar walba oo sadaqadaadu badato, waxaa iyana siyaadaya irsaaqadaada. suubanaha ayaa horey inoogu sheegay inaysan sadaqadu maalka nuqsaamin. ku dadaal kuwa ugu xaqa leh in wax la siiyo, maadaama waayadan dambe wax weydiisiga laga dhigay qayb ka mid a ganacsiga. balse ogsoonow in Rabbi uusan marnaba dayacaynin waxa aad la baxday, si kasta oo qofka qaata uusan xaq ugu lahayn in la siiyo. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelkeena adiga oo saaxiibadana la sii wadaagaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.